أنا صومالي 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 وأفتخر. الحمد لله. أنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برنامج كبع فكر كاجا وليبا قيبتيسا كودا كما عقلي بدنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa shakhsi runtii aad u saameyn badan wuxuuna ka mid yahay boqolka qof ugu saameynta badan qarniga kan qofkan yani fadligiisa ayaa waxaan isticmaalnaa wuxuu sameeyey maalin walba ayaanu isticmaalnaa waxyaalo aaladu sameeyey yani ninkan wuxuu saameyn ku leeyahay caalamka oo dhan ayuu si kale u rogay xilligii u dhimanayana mid ilaahay aaminsan mid ilaahay aaminsanin intaba aad baa looga naxay magaciisa waxaa la yiraahdaa Steve Jobs wuxuu dhashay 1995 February wuxuu ku dhashay magaalada California markii uu dhashay waalidkii markiiba way iska tuureen wixii geeyay meelaha carruurta lagu xanaaneeyo ayagoo aan doonaynin inay xanaaneeyaan yaraantiisii iskuulka aad uguma fiicneen laakiin markuu iskuul ka soo baxay wuxuu sameyn jiray inta badan wuxuu tagi jiray meelaha qashinka lagu tuuro ay wuxuu ka soo urursan jiray qalabka elektarooniga ee la tuuray sida kombiyuutarada la nacay daatooyinka iyo wuxuu TV-yada daatana dib ayuu u sameyn jiray dib ayuuna u iibin jiray xilligii jaamacaddu dhiganayna jaamacaddii ayuu isaga tegay isagu markaa isaga baxay wuxuuna seexan jiray dibadda jaamacadda iyo banaanka iyo meelaha cidlada ayuu seexan jiray laakiin goal buu lahaa target buu lahaa waxbuu tigsanayay hami buu lahaa ninkan wuxuuna doonayay beriga kombiyuutarada la isticmaalayay waxay ahaayeen kuwa runtii aad u baaxad weyn aad u waaweyn bay ahaayeen laakiin ninkan wuxuu doonayay kombiyuutar yar yani keyboardkiisa iyo screenkiisa isku dhegan oo intaa leeg ayuu doonayay magarasa inuu sameeyo targetkiisa ka ayuu ahaa markii dambe ugu dambeyntiina wuu sameeyey wuxuuna asaasay shirkadii la yiraahdo shirkadda Apple ayuu asaasay markii uu asaasay ayaa waxa dhacday raggii wada shaqeynayeen ayaa la isku dhacay daatana waxa yani waa laga shirkadiisii ku soo rafaaday ku soo daalay waa laga eriyay laakiin intaas kuma dhiibin inkastoo dinii jab ku noqotay laakiin hadda intaas kuma dhiibin wuxuu asaasay shirkad kale la magac baxday la yiraahdo Pixar shirkadan waxaa ka shaqeysaa graphics yani waxay ka shaqeysaa yani kartoonka filmada kartoonka oo loo daawanayo 3D ah dhaqdhaqaaq 3D ah loo daawanayo sawirro dhaqdhaqaaq waliba 3D ah wuxuuna ka iibiyay shirkadii la yiraahdo Walt Disney daawatana waxay u arkeen fursad ninkan inuu yahay nin aad u cajiibsan isla markiina wuxuu bilaabay inuu sameeyo aalad yar oo aad 100,000 oo saacadood wixii aad dhegeysan lahayd hal mar dhegeysan karayso aalada oo maanta loo yaqaano iPad aaladan ayuu sameeyay markii dambe markuu aaladan sameeyay wuxuu helay isla daqiiqada ila sekinka ay wuxuu ka mid noqday dadka caalamka ugu qanisan dadka caalamka ugu tarjisan ayuu ka mid noqday shirkadiisii hore ee laga eriyay Apple ayaa beriga waxay ku socotay inay gasho yani konkush inay ku dhacdo inay salifto in shirkadii magarasa lacag laan ku dhacdo shirkadii dib loo iibiyo shirkadii laga eriyay oo asaasay ku soo rafaaday ayuu mar laba dib u iibsaday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna la nudii' ajra man ahsana amala ilaahay qofku doono wuxuu doonaha aaminsanaado wuxuu doonaha qofku doonaha noqdo qof waliba u dadaala dadaalkiisa uu helayaa ilaahay nuu siinaya waa cadaalad anigan wuxuu yiraahdaa mawhibada ama talentigu keligii kuma geynayo kuma sameynayo inuu ka dhigo magarasa qof nolosha ka guuleystay ama qof nolosha meel fiican ka gaaray wuxuu leeyahay imise qof ayaa talent la siiyay daatana ku dhamaaday fashil iyo guul darro wuxuu leeyahay inaad ku samirto waxyaalaha adiga doonayso aadna u dulqaato wadadiina hayso waxay ka dhigaysaa in aad guuleysato shirkadda Apple waxaanu naqaanaa in tufaax yar yani in yar laga goostay inay tahay taasi macnaheedu waxa weyn berigii shirkadiisii hore laga eriyay ayaa wuxuu sameeyay
haddii in yar tufaax laga goosto in yar yani waxa muhiima ma sheegaysa magarta maadaama tufaax intiisii weynaa uu haysto taasi macnaheedu waxa weeyaan fikirku waxa weeyaan asaga maadaama shirkadii hore laga yeeriyo fikirkiisa inuu la socdaa kama harin yani waana qaybta tufaax ugu weyn magarasa la soco barnaamijyada soo socda kadib fikirkaaga أعداؤنا لن يفلحوا بلادنا ستنتصر أبناؤنا هم الحمى صومالي وأفتخر أعداؤنا لن يفلحوا بلادنا ستنتصر أبناؤنا هم الحمى صومالي وأفتخر